koortiisa waxaanu ka soo horjeednaa shirka igad baanu ka soo horjeednaa waxaweeye waxaanu maxamed daar waxaan ka tirsanay guddiga gacan libaax waxaan ku taageersanay go'aanka madaxweynuhu gaadhay ee kala dambaysta la dambaysiinayo golaha baarlamaanka iyo golaha madaxtooyada sida loo kala dambaysiinayo ayaanu ku kalsoonahay kuna raacsannahay go'aanka madaxweynaha waanu ku taageeraynaa annaga iyo bulshadeeduba waxaanu ka tirsanay ururka kulmiye ayanu nahaynaa bulshada marka waxaanu ku taageeraynaa go'aanka madaxweynuhu gaadhay ee golaha baarlamaanka golaha gurtu ay go'aan kari waayeen waa suu go'aan ka gaadhay sidii loo kala dambaysiin lahaa labada muddo ee kala dambeeya ayaanu ku raacsannahay madaxweynaha marka waxaan leenahay hambal iyo madaxweyne hambal iyo soo jiro joog baanu leenahay madaxweyne nasan ku hambalinayna madaxweynaha sababtoo ay tahay dadweynaha shanta Soomaaliya waxa u dana inay mudnimo ahaato inay kala tegin inay gobollada ay mid ahaadaan gobollada saami qaybsiga dadka laga tirinadan yahay iyo dumarka iyo gobollada dalalka ee bariga iyo galbeedka si ay ku qancaan inay looga hadlo oo bulshada loo sheego in mid laga yahay Soomaaliya inay doonto xornimada damay dhacaysa in laga midoobo oo mid ahaadaan baan doonaynaa marka madaxweyne waan ku raacsannahay go'aankaad gaadhay halkan waxaanu ka hambalyeynaa madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo go'aankii uu gaadhay labada meeloodba annagu Soomaaliya bari hore aanu kala tagnay way quusatay haddii maxaday ay tahay beesha caalankana annagu wixii noo daacada waanu yeelaynaa wixii noo golla waanu yeelaynaa madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo aanu u dhiibanay talada Soomaaliland inuu noo hayo oo isagu go'aanka noo gaadho Soomaaliland madaxweynaha ay raacsan tahay madaxweynahaanu u soo baxnay inaanu ku hambalyayno maanta maxadayeen soo baxan waxa weeyaan madaxweynaha iyaga Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo go'aanku gaadhay waanu raacsanay halkan maanta waxay isku soo baxday bulshada caasimadda Hargeysa ee gobolka Maroodijeex in ay dadweynaheedu shucuurtooda ka muujiyaan iyo mowqifkooda iyo rabitaankooda waxay taageersay go'aanka madaxweynaha talada Soomaaliland haya aanu cidna uga garabsanayn mowqifkiisa ayay shacbi weynihiisuna ku taageerayaan waxaanu matalaynaa shacbi weynihii waddanka Turkiga oo kale in aanu wax alaaleyn wixii madaxweynaha uu go'aamiyo aanu raacno ayaanu go'aansanay waxaanu isugu soo baxnay maanta in aanu taageerno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato mowqifkoodu Soomaaliya loo dhigay waana laga baxay waxaana weyn calan dhacay bay sitaan waxaana leenahay madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne ana shafadiga fadhiga noqon calan aad leedahay samayso cid ku soo darsan samarka ala kayfiyada kusaysan laakiin shaqada Soomaaliya way Soomaaliland la mid anaga Ingiriis baa xukumi jiray ya waana ka baxno cidii afartii kala ka baxay saddex kala ka baxay man afar kun marka waxaanu leenahay khajil wal khajil salaam عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan u dirayaa baaq Soomaaliland dadka ku nool oo dhan waxaan leeyahay goonisteedkeenu waa guul marka ugu horeysa anagoo goonis ku taagnay waxaanu taageerada saarana mahadnaqan u dhignaa madaxweynaha Soomaaliland aad iyo aad u mahadsan yahay waan qaatuso
Somaliland ku dhaqay ku dhisay ku socdo maxay ahayd mahad baan ku celinaa madaxweynaha Somaliland waxaanu leenahay caalamka waxaan Somaliland waxaan maxay ahayd aananu dhaafay sharcigiisa iyo aqoonsigiisa waa madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo marka waxaanu leenahay aad buu ugu mahadsan yahay go'aanka uu gaaray caalamkana waxaan ka codsanaynaa inay markasta mudnaanta kooban aanu siinayno madaxweynahayaga aanaynu kula taageeraan inuu madaxweynahayaga uu yahay kana maamula oo istaaga Somalilandna waxaan leenahay guul madaxweynahayagana waxaan leenahay inaananu dhinacnaba aanan u dhaafi karin go'aanadu soo jeediyo Somaliland way tagtay ha habsanina maasha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan doonayay inaan hambaliyo uga soo jeediyo iyo bogaadin madaxweynahayaga sharafta leh baarlamaankayaga aan leenahay hambaliyo boqol jeer cidna ha u joojinina halkaa kaga haya waddanka innaga leh xar baynu u nahay cid gaalo iyo Soomaaliya cid nala leh ma jirto guul shukran bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa mid raabi cali waxaan degan magaalada Hargeysa marka hore waxaan halkan hambaliyo uga diray madaxweynaha qaranka Somaliland Mujahid Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo waxaan leeyahay madaxweyne waad ku mahadsantahay go'aanka geesinimadeed gaadhay waana lagugu yaqaanay shacabkaaguna way kugu barbar taagan yihiin nin shacabka mucaaradkana igadna waxaan leeyahay Afrika ayada madaxweynayaal macaankaga wada haystaan xoog ku haystaaye madaxweynaha ayagu idila mid maaha wuxuu diyaariyay soo shacabkiisu diyaariyo doorasho wada taagan yahay codkiisu aan qofna ka baydheen buu yiri madaxweynaha dambeeyo cusub ee qabtay intii ay doortay waxba ku darsan maayo lagu celinayo waa madaxweyne cadaaliya waa madaxweyne dimuqraadiya waa Mujahid dalkiisa soo halgamay oo aan dhibaato u ogolayn oo doonayay تريقاقي من محاضرة إذا كان باهن إذا كان يسوق لسان باهن Soomaaliya أنا هذا وحداي أفريقيا مو إلى لين إذا إحنا قلنا إذا سكوت لنا إذا حمرت كده ده وإحنا ليه معارض هدي تلذي بقى عن تلذين قليل وما ذا حوينها ترى هذا ندو قصة تلوان وكري ويني هذا رداء حمله وإذن كسحية مولي أنا كشجعنا وقاعد كسبوقان عطانتان وإحنا ليه وحنا مرينا يا نير بان كان معارض غير كورنا يا وإحنا مرينا كالسوني وكل توحيد الشعب قعد كأني ما يسهل هي الدورشان بالحوينة اللي تسوق قديمين وإحنا ليه على رضايا وحبة الهلية يمثل عد الشعب كي نقدر هكان تكون بهنا وحوم كسبارة ضد كسبارة دي ما يساورنينه وإحنا ليه داد مسك هذين يسوع داد ملحمات على طول دستور قال الله مريم راسي في غاية ميسي شعب كوم حابسن ميسي شعب كوا وذا مسؤولات دباتوي صامرين معنا واي قرنا إياه شعب كوم حابسن ميسي مال كودا كباب ميسي مشاكل لا دون ميسي مشاكل لا دون ميسي شوق عينه وضع dadka reer Soomaaliland fara badan ama dadka reer Soomaaliland gobolada oo dhan iyo degmooyinka intaba waan salaamaya waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ku xigsiinayaa madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo ee qaatay go'aanka geesinimada leh ee ka baxay wixii ay nagula meelaysan jireen قرآن كائن هذا تبحي المان هنا ما تقدر بحيه يقدر الله بحيه وعن كله يا هاي وعن كله يا هاي كان يانا علينا هي قابل وري يانا علينا هي قابل وري ويسكب عند الرئيس أنا قبل حين شفت ما لا يقرأ هذا إذا كان يمل وعيتي ولنت تبحي المان هاي إلهي ما نكنت يسمع إلهي ما نكتبنا تقدر أنا قاعد بحنينا وعن كم الحوينين كيسن ماذا ولا ورعين هذا سلمة على سدي سيدا كلا إلى سيدا كلا وحنا يا حسبي هذا وعاركا وجوليا بارلوكا فقدي سنين قوي إنه كوي اللي يم الحوينين كل كبار كيسوها شاعرية إنت وانك يلاها ويسوعريين شقدودي بيحي مدحوينها waxa waajibkiisa inuu ku sameeyo marka go'aanka lagu soo celiyo ma ku taageersanahay taa waa ku taageersanahay
waa kugu taageersannahay adduunyadana waxaanu u sheegaynaa inaannu isku raacsannahay tawfiiqdayada taladayada ciidamadayada wadajirkayada tawfiiqdayada weligayaba waanu ku soo wada soconay doorashadana sidaasaanu ku gelaynaa ma taageersannahay sidaas الرحمن الرحيم waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliland ay isugu timid dhalinyarada culimada haweenka madaxda dhaqameedka salaadiinta xuqaasha gudoomiyaha gobolka Maroodijeex madaxda gobolka Maroodijeex waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaam waxaanu taageersanahay oo aanu taageero mug la siinaynaa go'aanka geesinimada leh ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo ee uu qaatay ee uu dalka ku badbaadinayay markaasi inuu kala qaaday labadii doorasho waxaan leenahay hambaliyo waa ku taageersanahay mar labaad golaha wakiilada go'aanka ay taageereen ee madaxweynuhu uu soo saaray ayagana waa ku hambalyeynayna waa ku mahadsan yihiin waxaanu u soo jeedinaynaa bulshada caalamka ama qolada la deeqbixiyaasha ee doonaya inay farafareeyaan nabadda Soomaaliland halka aanu annagu marayno wax nagala qabta baanu leenahay laakiin uma baahnin in la faruuro nabadda Soomaaliland iyo horumarka Soomaaliland diyaarna uma nihin in dhibaatadii koonfurta ka jirtay in loo soo waarido oo loo soo raro Soomaaliland taana diyaar uma nihin baan leenahay haddii aad bulshada